gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani ee gobolka Togdheer Maxamuud Xasan Salebaan Doob ayaa subaxnimadii hore ee ooga waabari ee saaka kormeer ku tagay bariishka labaad ee magaalada Burco kaasoo maalintii shalay roobab 24 saacadood ee u dambeeyay oo ka daayay magaalada Burco iyo deegaanada hoos yimaada ay waxyeelo xoogan u geysteen dad yar ah oo ka ag dhawaa bariishka labaad ee magaalada Burco Master Doob gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Togdheer waxa uu eedihii ugu cuslaa u soo jeediyay maamulka gobolka ka degmada iyo wasaaradda howlaha guud iyo guryeenta Somaliland gudoomiye Doob waxa uu sheegay in marka laga tago awoodaha raxmaadka eebe inay sababtahay u dhimeen dhismayaashan ay leeyihiin maamulka gobolka ka degmada iyo sidoo kale ka wasaaradda howlaha guud iyo guryeenta Somaliland gudoomiye Doob waxa uu sheegay inay mudan yihiin mas'uuliyiintani in looga yeedho xarunta golaha shacabka si su'aalo looga weydiiyo xaaladda bariishadu ay keeneen ee la soo daristay bulshada ay mas'uulka ka yihiin maanta ay bishu tahay 29 bishii afraad 2020 halkan waxaan taaganahay dooxii weynaayo Burco saanu imika ogaanay markii aan u kuurgalay 11 qoys ayaa hantidoodii iyo guryahoodii ay ku dumeen guulkanina wuu laalaadaa waa aragtaan badiisina wuu dumay dhulkan wuxuu ahaa dhul degsiima oo boqolkii sanadood burcad jirtayba waa la deganaa dhul dadleeyay buu ahaa kamanu mid ahayn doox mana ahayn dad dooxa ku soo guuray ama dooxa maxay too ciriiriyay loo oran kara maaha sida guryaha Ingiriisku dhisay oo kale la mid ahaayeen ee toga qarkiisa ku yaala dadweynaha waxa soo gaadhay dhibaato waxa gaarsiiyay waa raxmadii Alle iyo naxariista ilaahay waynu ku mahadnaqaynaa ka dayrin mayno laakiin dhibaatada walaalaheen soo gaadhay waynu uga tacsiyeynaa waxaan leenahay ilaahay waxaan uga baryaynaa in ilaahay cawl khayr qaba uu ka siiyo dad waxba kuma noqon laakiin wixii ay hanti haysteen guri haday tahay iyaga haday tahay iyo waxay wax ku kursadaan haday tahay gurigoodii oo dhameystiran baa soo dhacay oo la daawanayay dhibaatada waxa weeye waa in la isweydiiyaa Togdheerna meesha waa ahaa dadkuna waa deganaa laakiin daadkan fatahay ee tirada badani xaguu ka yimid daadkan waxa weeye waa daad magaalada hareeraha ka mari jiray moos baa burcad dusha ka mari jiray mooskii waxa loo sameeyay nidaam farsamadiisa aan waafaqsanayn biyo dibatana waxay soo qaadeen togi waxa soo galay biyo ka badan sidii injineeraduba hore way u sheegan biyo ka badan biyihii markii hore loogu talagalay ee dhex marayay dibatana kaas wuxuu keenay inuu fata fara badan uu yimaado bariishada burcana daadku dhakada ka maro waa daadkan iyo daadkii ku xigay labadaba saasay ayay maxay ay sameeyeen waxa cadaana maalintii la xidhaayay maxay xariga laga jaraayay bariishka dayactirkiisii inuu injineerku sheegay in tuugi uu haray bariishka bariga Burco faystuugaasi wuxuu ahaa in lagu xidho gidaar la raaciyo mooska ciida loo dhigay in gidaar hore loo raaciyo si aanay biyo dadka waxyeelayn saasuu injineerku cadeeyay in wasiirka howlaha guud uu qaato go'aan degdega faystuugana inuu fasaxay haddii markaa dhaqaalaha uu ka wabiyay waxa ay dawladda hoose inay gabiyan ku xidhaabay iyo wasaaraddu iyagoo iskaashanaya oo dadkan si looga badbaadiyo biyaha maadaama Abriil la joogo ama bishii saddexaad markaa la joogay in la badbaadiyaaba ay dadkan iyo dhismayaashooda dayaca halka ka dhacay ilaahay baa wax badbaadiya dadka maanta xanuun baa laga baqaya xanuunka afka waxa laga xidhanayaa maro waa la iska ilaalinayaa baa la leeyahay xukuumaddu waxay amraysaa dadku inay kala fogaadaan war dadka in la badbaadiyo gabyan loogu xidho maxaa loo fahmi waayay toga dumayna xukuumadda xaggaana biyaha ka jartay oo dawladda hoose cagafyo khaldan gelisay xaggana iyada diiday in dadkii biyaha la dhaafo oo inta hal moos la dhigay ayay faystuugi wasiirka howlaha guud iyo maayarkaba waa in su'aalo laga weydiiyaa waa in baarlamaanku u yeedhaa waa in ay u yeedhaan guurtidu waa in su'aalo laga weydiiyaa waxa togaasi ummadda ku qaaday mar kale gudoomiye Maxamuud Xasan Salebaan Doob oo hadalkiisa si wata waxa uu carabaabay inaanay awood u lahayn ciidamada booliska gobolka inay joojiyaan qaadka ay xukuumaddu joojisay waxa uu ku sababay inaanay ciidamada booliska gobolka Togdheer aanay haysan gaadiid ay ku hawlgalaan marka laga tago laba baabuur oo uu sheegay inay ka dhex shaqeeyaan gobolka baaxadda weyn ee Togdheer oo xuduud la leh dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya waynu dareemaynaa xuduudda ugu dheer baa gobolka Togdheer leeyahay waxa la yiraahdaa qaadka waa la joojinayaa maxaa lagu joojiyaa bilayska ka hortagaya xaguu jooga gaadiidka sax ay ka keenayaan ayaa isweydiin leh gobolka Togdheer wax shaqeynaya oo aad ishu qabanayso bilayska laba baabuur buu wataa ugu dambeyntiina Maxamuud Xasan Salebaan Doob waxa uu eedihii ugu cuslaayana u soo jeediyay wasaaradda caafimaadka Somaliland oo uu sheegay in ay dayacday Xisbitaalka guud ee Togdheer oo aan lahayn sida la sheegay wax ambalaas ah iyadoo lagu jiro xaaladda cudurka COVID-19
cisbitaalkan ayaa la sheegay inuu u adeegi jiray bulshada ugu badan gobolada bariga Somaliland. cisbitaalka weyn oo Burco waxa loo diyaar garoobayaa bal leeyahay maxay tahay COVID-19 ambulance lagu qaado qofka xanuunsanaya male miyaa loo waayay ma xukuumaddu ma hal ambulance bay weydii haday xukuumaddu dhaqaale weydii ma dadkay agaasimi kari weydii oo ganacsatada iyo culimada mar walba ay u yeedhayaan ayay oran kari waayeen baahida naga daboola waxaan leenahay oo soo jeedinaynaa dadka muxsiniinta reer Somaliland xukuumaddu waa ku waajib inay dadka wax u qabtaan. عبد الغني بافو مقباهية عالمي قاية أرتين مقالة برعو.